beledweyne askari nisa ah ayaa ku dilay qof haweeney ah oo la sheegay inay ganacsi yar halkaas ku haysatay burco laba qofood ayay dhimashadu gaartay sidoo kalena mudaharaadyadu waxay ahaayeen kuwa aad u waaweyn oo magaaladii waxa qabsaday uuro kadib markii dadka shacabka ah ay taayiro gubeen sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland ayay wararku sheegayeen inay ka soo baxeen furimihii dagaalka maxaa ka jira wararkaas iyo warar kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilownay magaalada beledweyne oo xarun u ah gobolka Hiiraan waxa la sheegayaa in halkaas askari ka tirsan kuwa hay'adda nisa gaar ahaan nabad sugidda labisan in qof haweeney ah uu ku dilay halka lagu magacaabo xiro daraawiish oo dadku ay sheegeen in ay halkaas ganacsi yar ku haysatay oo ay isku gedisay qaad iyo sidoo kale shaax waxa sidoo kale dadku ay sheegeen in askariga iyo haweeneyda uu muran soo kala dhaxgalay taasi oo ugu dambeyn sababtay in askariga uu fududaado isla markaana dhowr xabadood uu kaga dhufto qaybta sare ee jirka haweeneydaas oo ugu dambeyn u geeriyootay rasaastii lagu dhuftay laamaha ammaanka beledweyne ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin laakiin waxaa la sheegay in askariga la qabtay sidoo kalena xabsiga uu ku jiro waxaa magaalada burco ka dhacay mudaharaad weyn oo ay dadku shacabka ah ku dalbanayeen sidoo kalena kaga soo horjeedeen sideynta tiro maxaabiis ah oo Somaliland gaar ahaan madaxweyne Cirro oo cafis u fidiyay qaarkoodna magaalada Hargeysa diyaarada inta laga soo saaray laga dajiyay magaalada Garowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland dadkaas waxa ay ka cabanayeen in uu wali sii xirnaado Faysal Cabdi Bootaan oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda amba ciidamada qalabka sida ee Somaliland kaasi oo lagu qabtay dagaal ka dhacay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool dadkan waxa ay sheegeen in arrintaas si weyn ay uga xun yihiin iyadoo aan la soo deeynin Faysal Cabdi Bootaan iyo sidoo kale askar kale oo la xiran la sii daayo askar kale oo maxaabiis ah oo Lascaanood dagaalka ka dhacay lagu soo qabtay oo Hargeysa xilligan ku sugan dadka ku geeriyooday inta la xaqiijiyay laba qof ayay gaartay halka dhaawacana la sheegay in kor uu u dhaafayo ilaa 20 qof mudaharaadku aad u xoogana awgiis laamaha amniga ayaa xakameyn waayay taasi ayaana keentay in magaalada uu ku sii fido sidoo kalena ay gubaan dadku taayiro in muddo ahna ay kala xiraan magaalada maxaa ka jira in ciidamo ay ka soo baxeen furimaha dagaalka ee deegaanada maamulka Jubbaland si gaar ah degmada ama deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubbada Hoose warar kala duwan ayaa daqiiqadii la soo dhaafay soo baxay oo ku aadan in ciidamo ay ka soo baxeen furimaha dagaalka mushaar la'aan iyaga oo ka cabanaya laakiin arrintaas saraakiil kala duwan oo xiriiro kala duwan la sameeyay ayaa beeniyay waxa ay sheegeen in aysan jirin ciidan ka soo baxay furimaha dagaalka oo mushaar la'aan ay soo wajahday bilihii la soo dhaafay si gaar ah 3 bilood ee la soo dhaafay laakiin wararkaas ay yihiin dacaayad iyo kuwa been abuur ah oo la doonayo in ciidamada lagu qalqalgeliyo iyo guud ahaanba ammaanka deegaanada maamulka Jubbaland gobolka Shabeellaha Dhexe gaadiid in muddo ah ku xayirnaa deegaano qaar oo ka tirsan isla gobolkaas ayaa maanta dib loo sii fasaxay iyadoona gaadiidleed ay u mahadceliyeen cid walba oo ka qayb qaadatay gaadiidkaas sideentooda waxaana dib loogu laabtay ama ay ugu laabteen deegaanadii markii hore ay ka soo kictimeen iyaga oo la sheegay inay safar u sii ahaayeen deegaanada gobolada dhexe ee maamulka galmudug waxaana ugu dambeyn la tilmaamay in sideesmadooda ay ka qayb qaateen mas'uuliyiin kala duwan oo maamulada galmudug iyo Hirshabelle ka soo jeeda